fiican bay dhaguhu maqlayaan miraale waxa maanta ka dhacay guul baa leeyahay ciidamada daraawiishta geesiyaasha Puntland waxaan ku dul istaagayaa saraakiil baa maanta meesha ku dhimatay khasaaraha rasmiga ah meesha ka dhacay inta ciidamada Puntland soo gaadhay waxaan kale ku dul istaagayaa beelaha ay ka soo jeedaan inta aan qodobkaas si qoto dheer ugu baashaalin maanta ninka waa garanaysaa waxa la magaciisa Maxamuud Shidaan lahaa waa ninkii dhisay Saciid Cabdullaahi Dani waa king maker ka siyaasadda Puntland way isagana wareysigiisan wuxuu sababta ku kaliftay inuu ninkan waqti ninkan hadli jiray maaha inuu wareysi bixiyo sababta ku kaliftay ba xisaabtana ku daro ninku aan adeerkeen Riix Xuseen way sidaasna u sii baro waya qodobkay u horeeya horta meeshii Puntland wax wariyaa kama jiraan iska anahu qof sharmuuto qol u furan tahay oo marka dhuruq u turtid wixii arabtid ku soo qoraya way wariyaalku waa u taqaanaan waa weyn ba waxay qorayaan xogtii doorashooyinka Puntland baa la xaday waxa loo socdaa lambar 1 ninka meesha jooga ee warsangeliga ee beek jooga baa loo socdaa kursigiisa in la sii banaysto oo laga dhigo inuu maadaama reerkiisa hadda ay ra'iisul wasaare la saxana ku soo arkeen in ninkii warsangeli baa dagaal lagu wadaa hadda ma shalay wixii dhankaasi ergaabo ka dhacay era iyo mulaaha xameyti way soo cayaan waa labadu warsangeliga waxa dhaqsan yihiin warsangeligu waxay noqon waayeen wax lagu shaqeysto waa noqon waayeen iyaguna waxa dhacday marka oo niman ilaa dagaal ku jiray tala meel u taala tooda la raacay laga khaldan marka ninka warsangeli baa loo socdaa ninka warsangeli kursiga si loo xalaalaysta waa anagii laxbana loo soo wariyay caadi loo baan loo haystaa waxa la leeyahay xogtii Puntland baa la xaday doorashooyinka markii la xadayna xamar baa la geeyay maadaama ra'iisul wasaare Xamza meeshii yimi maanta xamar ka degayna ku noqdayna ay doorashooyinka qof iyo codka xamar ka bilaabeen macnaheedu marka waxa weeye hawiyuhu ama dadka koonfur jooga dad garanaya ma sida faraha loo qaado saasu farxad buu abuuranaya xameyti mulaax xameyti farxad buu nagu dul abuuranaya anagu u jeedna marka aqliyaashan u caaya intuu si naagashan mutooyin wariyaal cagsiye kuma baraarugsan ma dheen wariya naga taag aqlaxmada xogta Puntland meesha taala maxay 400 kun baa dadka diiwaan gishna tuulo kasta inta ka diiwaan gishna waa loo jeeday ma waxa leedahay qalabka la xaday oo anaga kaliya qalabkaysanay qalabka meesha ka soo gadatay caalamka dhanka ka soo gataano waxaan shirkada iibiya oo Chinese iyo balaayo iyo cid kasta laba iibiya wax xogta laga xadi kara maxay tahay kuwa marka CBB waxa qoraya CBB sidani waxa qoraya xog badan lama xadine shaqaalihii tababarnaa ba weli aqligeena la sii caayay hadana idinku waxa marka marxanti ka noqonaysa marka ma dhigi kartaa wariya naga tag haba ay xogta wase wixii la xaday anaga waxa naga qosaya orad meesha isaga deg saasa dawlad ku sheeganaysa shalaata sano hadaad xogtaada futaada ma xafidi kartid ma dhigi kartaan marka idinkii waa wixii baa la kala safaraysa marka mar waxa noqonaysa daaweyne mar waxa noqonaysa warsangeli mar waxa noqonaysa bahar dhul baahante oo waxa soo kala loo qoraa wariya anaga aqliga ay ballah oradna dhaafay darada naga tag dadka xamar jooga koonfur joogana haday doorasho qof iyo cod qabsanaya maanta waa u gaadhay amaan iyo nabad iyo kala dambeyn iyo dawladnimo haystaan xamar maanta intaas waa ka jirta dawladdaas haday qabanaysan dawladda federaalka waa centraalka Soomaaliya way laakiin anaga noo dhigana tahay dawlad cawaara waxba kala gareyn la yaqra wala yaktub farxad inaas ka abuurno hadhow dadka Twitter space ka xalay waxa ka socdo ayaabas TikTok waxa ka socdo ayaabas intii baan dadkii la aadana ha taa maxay kala garanayaan waxba kala garan maayaan annaga shaqaalaha tababarka meesha xamar jooga waa shaqaalaheeni way hatta hadii lagu dhawriya tababarka gaaja xamar keentay aqoona xamar ma keenin gaaja xamar ku taxta waa jawaab way marka xameyti mulaaxa halkaas u maraya in isagoo nin kursi ka kacsanayo oo dadkii beer u sheego oo waa maalin walba siyaasadii dhuxu ka dhigtay fuusto TikTok oo la riixay ama social media qodobkaasna sida ogaad xog la xaday baan jirin xog Puntland qarsoon baa jirin wuxuu cunay baa la og yahay meeshu saxday baa la og yahay isaga sir lahayn isaga iyo naashar muuta shirkada ka ganacsato imaaraat iyo arab u shaqeysa gaarsiin intaas waxaan dul istaagaya miraale soo ay dambeynaya meeshaas si fiican barana ugu tirtirsado ninkaas dul istaagay Maxamuud Shidaan ninkaas horta ninka waa king maker saddex dawladood buu dhisay dawladii jaamac al-jaamac wasiirka maaliyadda ka ahaa Puntland buu soo noqday ganacsade iyo siyaasi ganacsade uu aan jiray laakiin waqtiga waa siyaasi caadi ah waxa dhacday marka ninkaas xilliga jaacal dhisay dawladii labaad u dhisay waxay dawladii Faroole ahayd hadda waxa keenay inuu wareysiga bixiyo uu yaaban yahay wareerisa ilaahay ku xiray
mulaaxo qolo kasta uu xil ka qaaday wuxuu dhaha ninkaas idin ka qaaday ninka idin dhibaateeyey aniga ma aha wallahi aniga bahar dhulbaanta ahay thumma wallahi reerkaygu isma soo gaaraan waa runtiisu qof bahar dhulbaanta ah weligii dhib iyo problem ma geysan dhibkii ugu horreeyay geysteen waa wiilkii qarna kaga jaqaaqsiiyeen ama dhibaankaayo askariga bahar dhulbaanta uu fuulay iyo dani oo maalinba meel isku qaada weeye labadaasa bahar dhulbaanta ugu wax dhibaato sameeyey jira waxaa dhacday marka ninkan qolo kasta haysata marka reer kasta waa haystaa waxay leeyihin afkaa loo wada taagaya war maxaa aniga afka igu taagaysaa nin la arki jirayna maaha subaxmuushi damatiid ha adaa xilka iga qaaday xildhibaanka adaa i dhaafiyey liiska hore waa ku jira daniga qof kasta u keenaya liis buu haystaa leeyahy muujada waa ku jirta buu leeyahy maxamuud shidaa kaa saaray saa dadkii ninkii naftaa qabatay marka ninkaa marka nin akhlaaqiyan diiniyan intaba aad u dhisan weeye hal ciladuu leeyahay isagay dani ku kala fiican yihiin waa nin adeerka aniga ka beer abuuran maayo maxamuud shido waa nin riix xuseen raas hoosaas la nahay isagay abeela walaalaa kala dhalay isagay dani hal meel ku kala fiican yihiin meeshaas dabcan luuqa uga sheegi karaa laakiin si babliga waxaa rabaa inuu u ogaado dhaliishiisa u qaato sidoo kale waa nin maskax badan ballanta ku fiican ninka ragga been lagama sheego ballanta uu ku fiican hadduu kula ballamo wixii aa ku wada ballantay waa nin laga helayo waa nin ehlu cibaada wey oo ahludiin ah dadka ma aha cabto iyo qashin ma aha waana aad diinta ugu weyn tahay iyo ilaahayba laakiin hal ciladuu leeyahay oo isagay dani haddii caawa la weydiiyey ay ku kala dhaqaaqayaan oo sababta fiiri fahad yaasiin maalinta uu xafiiska baneeyey meeqaa la ooyey qof dadka soomaalidu waa dad halkaa dhuuntaa wax ka maqlaa 90% dad mabda' le ma aha dad qadiyad le ma aha dad afkaar le ma aha waa sida soomaalida u shaqaysaan sheegaya soomaaligu siyaasadda wuxuu qabaa leefleef buu qabaa ma aaminsan inay tahay mabda' soomaaligu mabda' uu qofku ka mira dhalin karo inuu siyaasi noqdo siyaasadda daneeyo siyaasadda boos ka galo qof kasta oo soomaaliya siyaasadda wuxuu soo galaya inuu wax hado ama wax ka dhisto ama khayaaliga siyaasadda uu ku dhex noolaado marka maxamuud shide sababta xafiiska maalinta baneeyey loogu ooyi waayey oo dadkii isaga la socday maxamuud dani u raaceen waxa weeye adeerkay gacanta haddii la gooyo bakhaylnimo darteed tanuu ku qabanaya dhakab wax ka furfurayo male marka adeerka iyo dani haddii miisaan la isa saaro dani waa deeqsi ah dani aad buu deeqsi u yahay yaa been laguu sheegi dani haddii lagu dhawaa bakhayl sida kale waa nin dani wuxuu ciladu leeyahay dani waa been badan yahay horta oo waa munaafiq ummadoo dhan buu kugu diraya oo sida ibliiska intuu islaamkaa dhex saaro qol kugu xiranaya waa nin dibindaabiye badan oo aad u xun wey nin inta kale adeerkaa kaga fiican dani miduu ku fiicaya marka dani farxiyadii uu dhiibaya hadda meequu haystaa dad u daacad ah dani kuwa wuxuu leeyahay daacad ilaahay waa buu leeyahay waayo bil kaste kowda bisha dhur waxaa kusoo dhacaya marka dani wuxuu kaga fiicaya adeerkay lagaga fiican yahay adeerkay waa gacangeed maxamuud shide laakiin sida kale adeerka waa kingimaker waa nin siyaasi ah waa nin meesha uu qabto kaale araga waa nin waxa uu doonaya markaa ka mira dhaliya hadafkiisa waana nin awood la wey runta markii laga hadlo oo wax kaa dhaadhicin kara waxna kaa gadi kara wey waa nin waxa uu yoolka uu leeyahay hadda waxaa lii sheegay waraysiga inuu ku sheegay inuu rabo inuu isagu dhiso macnaheedu waxay noqonaysaa inuu musharax madaxweyne noqonayo wuuna ka dhex qaaday hadduu musharax madaxweyne noqdo waa in dadka reer puntland wax qabad waa nin aad wixiisu waxay ku salaysan wax qabad ama ciidan dhis ama mashaariic dhis ama balaayo dhis laakiin waa gacangeed intaas adeerkii lagaga tegay marka waayo waxaan dul istaagayaa meeshii miraal ahayd waxa ka dhacay maanta horta allahu akbar dhaha allahu akbar dhaha allahu akbar dhaha maanta guul baa geesiyaasha ciidamada puntland usoo hoyatay horta miraale haddaan wax yar idinka siiyo xog waa 4 saldhig weeye 3 saldhig gacantaa lagu hayaa waqti xaadirkan hal saldhig baa dhiman oo miraale ka mid ah waqtigan hadda daawanaysid xabadii waa istaagtay laakiin faanola fare kama qodna weli yaa la degdegi waxaa dhiman saldhig kale weyn oo la dhaho magaciisa baalale ha kaasaa weli sii dhiman oo ay geysteen maxastii iyo kharashkii iyo kaydkii oo dhan kaasay urarteen kaasina u xigaa dhanka boosaas u xigaa miraale marka saaka 3 jiha laga weeraray 4 saldhig baa 3 saldhig waqti xaadirkan gacantaa lagu dhigay oo ciidamada geesiyaasha puntland baa xilligaasoo aasku u midoobaaday caawa ka casheenaya oo ku nasanaya waa suuragal inay berri halkaa u dagaal kasii bilaabmo laakiin miraale laftirkeeda hal god baa haray oo ay nimankii weli daawadii meeshaan gaashaandhig bay u ahayd waana saa u og tahay gaashaandhig
بمر على أرجع حسدا داعش تواحد ويا مركب لمشهد كود الاستاجية أرتع إذا ما بتلا لمشهد هذا وحويه إلى يكوي توان بي وأنت الحقيقي وحوه الرئي بختار كيوجونا إذا ما جيسياش دراويش بتلان ما يعيسني كمايو لكن غير كسايا وانا بعيدي أنا أورير وعيسى وأنا أختار وين نكاس قافت كل أنت ما تكون في وشيد إلى هاي كتاب كسميدك تاكسي قاشان روبل والسرقال سونا سراكيش بتلان وقت بدن سود قالمي كم دوانين اسمان حمودة أو إسحلة أو كترسن إذا ماذا قليلا قوت اللباد بكترسن إنك ونري نقاليد وها وياي سجنا قاشان له وحلا كتاب كسميدك الله كسي اسمان حمود وها لما فؤاد بخاري وانين كي وور ويل كده يرى ووري إذا ماذا بيع لسه لمبر وانكها سوي كيسوا كاسا ويل هذا رواي ويل ريح سنوي المية رسوا على قري ودمه ورجع أنت أصلا دي ولا بده كل يكوي تون كسب له وعيدا كوري أو بي إف على قريوي واللي بيحل جالس حتى حدي تري ويل كم يرجع بدي تري سو يربع إذا ما على قري ما أنت بكتاب كيس إلهي مدك تكسي أو شهيد كون قضاء الكاس أو سراكيس هالك كل ما تبي وكم من تقول وأنا ريح سنة الدنيا أنا دعمان بدي ريح سنة وأكيد أفراد نكان بي إف كتر سنة وكيش هذا أفر بكتر سنة إذا ما قلت لبعض أذكر قليلة وكل ما تي دني ملح وأنا داعش تجوش بدني غير كيس وهبر كمان دبان بحر البعنتا كرسي أنا ساق كفردي قرد بدقي لما كنا شنبقول مرة ما إلى يضيع عيدا شنبقول ما يرحص إيو شافع شرق لو كدر صي لما كنا شنبقول عيدا بحر قبل ودكن وهو تلقى كيت كانوا بتلا كرة ضيع لما كراست بتلا أو كبوه أرجع حسنا لفت كده ويصونوا قريان سيسوع اللي دنيا يسوع اللي أوغان هذا الكامل كقرو أو سيو قبيلة قاركود وجو بعضه بو سيد الله هو كل شيء لقلي وعندنا استاجية كورنيل درويش بي إف كورنيل كي يقصر إذا ما دراويش تا بي إف كورنيل درويش باللي تري نكاس سجن ونري بعديها نوي رجي ما أنت انتبه سجن كشري أو جوبته كشهيدي إن واحد كلو ترى لبنان أو سنجلي ترى واحد ترى نين علي سليمان ترى واحد ترى نين وار سليمان نين علي جبرائيل نين كسكي قبا واحد كوسو قبل برنامج كي هدي مرة الحرية أما أرجع حسد داعش بتلا أنا جساره قبيلة ذا لمبر 1 وماشاس كل بحي كل روح بحي كو إلهي هذا عيد ورسنجلي كايسة تمجرته إلهي هذا عيد ورسنجلي كالنتا كويسة تمجرته كالنتا اللي بعده حكوشرة هذا علي السلام بكوشرة كالنتا اللي بعد علي السلام عيد كويسة تمله وبنا يستوي مشرتين مركلنا يا وبحكرة سيا بنا كاركتي كالنتا سدحاد والإسروشية وذوقتين مالك عن ما أنت قدام بيسي ويل كاس ويل الكلا وهذا عن حوت كويلين باكوتشرة وياي ريرك أفراد والربعيان مال قدم كقرا أنا جشراد اللي حد عندي سكوت على سعيه وطلع لكن أفر تريرود ماشي قصارة وين وكسو قريب رد هذه شيء أو سي كل يلا بتاع دفاعي لكن يقول صوريو يدوب إياه نيك إياه ما كاسب إيش أو ما تشوفين قر الله يتقانا قر والله إسلام أنت صريرات عشاقي وورسنجلي وعلي سليمان وعيسى محمود والربع ذيان ويبن نيستن إذا بيحكر تمالي رقاس ما كو منافقين تايو مركي عناضو نقطنا وقتم كوي مركي ديالك نقطنا صفقة ودن بيهكرا رجع مركي قاعدة تمادنا وعيه وقت كيس بدن مركي ديالك نقطنا صفقة وري ركو تشرو وكاسا وكفانا يا أنا ويلش الربع ذيان وكفانا يا ويلش علي سليمان وكفانا يا ويلش ورسنجلي وكفانا يا ويلش عيسى محمود أو جراد كودي اللي يروى داعش ساسنا دنت بوتنا ما نقول بوش قيني لكن أنا نيكل الدنيا ما نديدي كتار كليد كبير دري الدنيا ما نديدي ما هي أنا وصلت كذا ذكر بوتان صومالي ونبعك إنه جراد كنا عقدات قبائل نحنيه نهاب دليل صاحي ده أنت كجن حصان رنت أنا جمهور دلوي ما السلام عليكم.